war-saxaafadeed la xiriira bayaanka ka hortagga hadallada nacaybka iyo wararka been abuurka. tan iyo intii uu isbeddelku ka dhacay dalkeena Itoobiya iyo deegaankaba lana fasaxay xorriyadaha iyo xuquuqaha uu dastuurku xeeriyay, waxaa soo ifbaxay shakhsiyaad, kooxo iyo xarumo warbaahineed oo si khaldan u isticmaalaya xorriyatul qowlka, kuwaasi oo faafiya hadallo iyo warar been abuur ah oo bulshada ka dhex abuuray isku dhac qowmiyadeed, mid diimeed iyo mid qabiilba. haddaba dowladda federaalka iyo tan deegaanka Soomaalida oo ka duulaya ilaalinta nabadgelyada, wadajirka, wada noolaanshaha, karaamada iyo sharafta muwaadiniinta ee lagu ilaaliyay dastuurka dalka iyo kan deegaanka Soomaalidaba ayaa waxaa dhawaan golaha xildhibaanada shacabku ay soo saareen bayaanka ka hortagga hadallada nacaybka ah iyo wararka been abuurka ah ee wax u dhimi kara nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka. ujeedooyinka bayaankan loo soo saaray ayaa waxa ay yihiin in laga hortago hadallada nacaybka ah iyo wararka been abuurka ah ee bulshada ka dhex abuuri kara rabshado, nacaybsho, takoor, isla markaana kala fogaansho dhex dhigi kara bulshada, si loo dhiirigeliyo isku dulqaadashada, is-xurmaynta iyo kobcinta nidaamka dimuqraadiyadeed ee ka hana qaaday dalkeenna. bayaankan waxaa lagu mamnuucay in qoraal, sawir, cod iyo muuqaalba lagu baahiyo hadallada nacaybshaha ah ee ka dhanka ah qof, qowmiyad, diin, bulsho, jinsi iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah. waxa kale oo bayaankani lagu reebay faafinta iyo baahinta wararka beenta ah iyadoo la isticmaalayo noocyada kala duwan ee warbaahinta sida idaacadaha, telefishinada, wargeysyada iyo baraha bulshada. haddaba xafiiska warfaafinta ee dowladdeegaanka Soomaalida waxa uu shacabka deegaanka Soomaalida ku baraarujinayaa inay ka digtoonaadaan faafinta hadallada nacaybka ah iyo wararka been abuurka ah. sidoo kalena qaybaha kala duwan ee warbaahinta ee ka howlgala deegaanka Soomaalida waxaa looga digayaa in ay duubaan isla markaana baahiyaan hadalka nacaybka ah iyo wararka been abuurka ah ee bulshada ku keeni kara nabadgelyo darro iyo kala fogaansho, waxna u dhimi kara karaamada iyo sharafta bulshada deegaanka ku nool. shakhsiyaadka iyo xarumaha warbaahinta ee ku xadgudba ama jabiya qodobada bayaanka waxay mutaysan doonaan ciqaabaha sharci ee lagu xeereeyay bayaanka ka hortagga hadallada nacaybka ah iyo wararka been abuurka ah. waa xafiiska warfaafinta ee dowladdeegaanka Soomaalida.